bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan falanqeyn toos ah oo aanu falanqeynayno labada actor xasan toob iyo atrisho baadiyo oo jacayl waali ah isku qaaday. xasan toob oo ah nin youtuber ah oo maamula durdur media shirkad lagu magacaabo ayaa asbuucyo ka hor waxa uu bartiisa YouTube ku shaaciyay in atrisho baadiyo qofta la leeyahay ay usoo bandhigatay jacayl waali ah. xasan toob oo markaasi video iska duubayay ayaa yiri atrisho baadiyo ayaa usoo bandhigatay jacaylkii ugu dambeeyay, anigana waan ka ridiyay, taasi oo ay la mid tahay xasan toob inuu naagtiisa keli ku kalsoon yahay. xasan toob oo ah nin xaasla oo qaba qof lagu magacaabo Faatuma VIP oo muqdisho ugu haysa caruur ayaa iska beeniyay inuu haasawe la sameeyo qofta la dhaho atrisho baadiyo. atrisho baadiyo oo ah youtuberad caan ka ah dalka Malaysia, taasi oo ay wada yaqaanaan dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed, ayaa maalmo kadib waxa ay jawaab culus ka bixisay hadalka baraha bulshada la isla dhexmarayo ee ah in xasan toob ay jeceshahay. atrisho baadiyo oo maanta barteeda YouTube soo dhigtay video yar oo waqti kooban soconaya ayaa tiri xasan toob haddii aan ku jeclahay haddii kaleba waxaa tahay wiil Soomaaliyeed, taasina waxay u muuqataa in haddii ay jeclaato xasan toob uu yahay nin u qalma, haddii kalena uu yahay walaalkeed Soomaaliyeed. arrintani oo cirka isku sii shareertay ayaa u muuqata mid meel un kusoo dhici doonta, taasi oo ugu dambeyn laga dhowr sugayo waxyaabaha ay isku maadhaafsan yihiin labadan mucaashaq ee xasan toob iyo atrisho baadiyo. labadan mucaashaq oo ah laba mucaashaq oo barta YouTube firfircooni badan muujiya ayaa maalmo ka hor waxa ay isku soo bandhigeen haasawo caalami ah, kadibna ay isku shareerteen in mar un ay nolosha wadaagi doonaan. barnaamijka gaarka falanqeynta guud ee aan ugu talagalnay youtuberada kala ah xasan toob iyo atrisho baadiyo waa naga intaas. barnaamijka waxaa idiin fududeysay Pastor News.